kulanti wacan wanaagsan khiyaarta inaga daawata janaalada Eleyska xogaha iyo soo kala tusmada filmada si wada jira labadan janaal hadaan oo kale waxa idinku soo gudbinaa wararkii ugu dambeeyay ee laga qoraalmaha koonfurta iyo Bollywoodka kuwaas oo la xiriira xanta jilaayaasha filmada soo baxay qorshooyinka filmada teatar saran ku goosgoosada heesa laga soo bandhigay iyo waxyaabahaas dhan ala bixiisa waleeyihiin wala wadaaya kartiin daawadaashina ku taxan barta tusmada filmada ay soo kala bartkale Eleyska xogaha meel walba joogtaan hawada waxa idin kaleena maalin wanaagsan ku soo dhawaada akhbaaraadkina waxaan ku bilaabi doonaa filimka Sharuuqan Japan kaas oo noqday filimka ugu dhaqsaha badan ee Hindiya kaas oo 300 oo karo ku gaaray muddo yar Japan qaybta Hindiya waxa uu ahayd maalin kale weyn kadib markii uu soo xiray lacag u dhaxaysa 23.50 karoor ilaa 24 karoor nadiifa taasoo dolahan u dhiganta 422,664 ee doolarka Mareykanka filimkan ganacsigiisa maalinta Talaada waxay ahayd mid uu filimka guud ahaan ka dhigay lacag kor u dhaafay 300 karoor taasoo filimka markaan lacagiisa ay ka gudbeen 302 karoor lacag ku dhawaad muddo maalin gudaheeda filimkan ayaa qiyaas ahaan 20% hoos dhac wuxuu sameeyay maalintii Talaadada taas oo wacnan in kulan weyn oo cricket ah ee qaybta Hindiya ay ka jirtay taas oo soo kala qaybaha koonfurtan filimkan oo ahaa mid uu ka gaabiyay hoos dhac uu sameeyay markii la gudagal maarmaha caadiga ah filimkan ayaa wuxuu film wali lacag fantastic ah sameeyay maalintii Talaadada kaas oo filimkan sidoo kale yahay mid meel fiican kaga soo tagay ama la sameeyay filimka bataan kaasi lacag uu sameeyay Talaadadiisii koowaad filimkan ayaa 7 maalin wuxuu ku gaaray 317 karoor bataan Japan ay ku qaadatay inuu ku gaari karo lacag gaaraysa 320 karoor maalintii toddobaad idoo kale rekoor noqon karto kaas oo kala wareegi karo filimkiisa Japan filimkiisa bataan هذا فيلم كان يسلك دنا العجيز جود فيلم مالنت سكوت تياتر وكر وحلي ماذا لحن 5 كرور جماعة وحلي ماذا فرتين كرور سبدي وحلي ماذا لحن 7 كرور أحد وحلي ماذا تضبط ندفع كونتن كرور سنين وحلي ماذا لواتين استدفع كونتن كرور ثلاثة وشالة وحلي ماذا فيلم كلها تستدفع تضبط 5 كرور تاس أو رجنتا أفر بقول لواتين كوكون لح بقول لحن أفر دولار كمريكان فيلم قصيد جود واستح بقول يهال دفع تضبط 5 كرور تاس أو رجنتا 5 مليون 300,500 دولارka Mareykanka nackal daawada waxaan saleeyay doonaa qolada filimka Salaar ayaa warar wax ka soo saareen baaqashada ku yimaada filimka Salaar qaybta koowaad ee Ceasefire usbuucii hore markii lagu dhawaaqay in filimka Salaar qaybta koowaad ee Ceasefire inuu noqon doono filim aan la daawan doonin xilliga loogu talagalay 28 September ee sanadkan bishan aan ku guda jirno taasoo iskala shabakada Humble Films waxaan arintaas ay noqotay mid ay duruufooyin u cugsadeen qolada filimka iskala iyagoo si rasmi ah maanta oo ku beegan 13 September-na ee qolada filimka iskala Humble Films ee warar ay soo saareen iyagoo soo kala sheegeen in ay aad markaan ay kaga xun yihiin soo kalena ay rabaan in ay filimkaas kor u qaadaan iyagoo soo kale ogsoon in filimkan oo kadib dhacay xilliga loogu talagalay September 28 waxaana sheegeen in ay jiraan duruufooyin markaan aan la cabiri karin hasaatee waxay sheegeen in ay daawadaasha ku qasbanaan doonaan in ay fahmaan duruufaha markaan jiro soo kale sheegeen in ay garab istaagi doonaan iyagoo filimkan balan qaadeen in ay la imaan doonaan filim miisaankiisa culus soo kalena loo sameeyo VFX sare iyagoo soo karaba in daawadaasha ka heli doonaan xilliga teatarada ay ka soo daawadaan filimkan ayaa la ogaan weli sabab rasmiga inkastoo qolada aysan cadeynin hasaatee filimkan waxaa la isku raacay November la daawan doono inkastoo qolada filimka iskale aysan weli ku dhawaaqeen xilliga ugu macquulsan hasaatee wararka xanta la qoray waxa sheegeen November filimkan la daawan karo taasoo soo kala sheegeen isku dhici karaan filimka Salman Khan ee Tiger 3 soo kale waxaa jira in ay jiraan filimada Dil Fis Jayal iyo soo kale lagaan bis gadar taas oo ka dhigay doonto isku dhacyada noocaas oo kale in Hindiya ay koonfurta ay wada dhici doonaan qaybta koowaad Ceasefire waxaa la isku raacay in daawan doono 24 taas oo soo kalena ay sandiic karin marka loo fiiro in ay jiraan kul weyn oo ICC Cricket World Cup ka 2023 soo kale November 10keeda iyo November 24na soo kale waxaa jira in Diwaliga oo November 3 filimkan kali waxa uu furan in November 19keeda la saaro qaybaha teatarada hadaba filimkan ayaa hogaamiye waxa ka Barabas Prefras Sukumana Shurti Hassan iyo Jagabati Babu kaas oo soo kale director waxa ka directorka filimka KGF directorka naqda ee Prashant Neel nackal daawad waxaan isleeyahay doonaa Shahid Kapoor iyo directorka Sanjalila Vanzale ay wax sheegeen in film weyn ay ka wada shaqeey doonaan 2018 marka dib ugu laabanayay markii Sanjalila Vanzale oo director ka naqda filimka Shahid Kapoor ee Badmaavad kaas oo soo kale filimkan oo wacdar ka dhigay qaybaha teatarada waxaana ka dhigaysaa in wada shaqeyntoodu ah Shahid Kapoor iyo directorkan ay mid heesara markaan sida ay qoray shabakada Pink Film waxa la sheegay in Sanjalila Vanzale iyo soo kale Shahid Kapoor ay
wada hadal ku wada jiraan kaasoo raba in film ganacsi weyn oo madadaalo dhameystiran inay ka wada shaqeeyaan qolada u dhow labadaas ayaa warbaahinta u sheegeen shaahid iyo kale Fansali ay waxa la sheegay inay ka wada hadleen mashruuc labada bil ugu dambeysay kaasoo raba in soo saaro ay ka naqdaan shaahidka Buursan Jaliil Fansali ay waxay ku xushmad dheer ka wada dhaxayso iyagoo sidoo kale ka wada munaaqashadeen fikradda wada shaqeynta ee mashruucani kaasoo film oo noqon doona film arrimaha madadaalada u dhameystiran waxa la sheegay sheekada filmka ee gabagabo ku dhowdahay iyagoo soo kale qolada filmka Fansali ay qoraalka ee sheekada ay wadaan taasoo ka dhigaysa in markii labaad ay labadan ay wada shaqeeyaan iyagoo filmkooda koowaad ee guul ee wada hooseedeen shaahid kasbahat waxa uu daasay mashruucooyin dhowr ah kaas oo soo kala jira film kala soo muuqan doono atirshada Kritisano filmkaas oo weli magac aan loo bixin soo kale waxa jira filmooyin xiiso leh halka marka loo fiiriyo Sanjaliil Fansali waxa uu daasay filmka Hina Mandi kaas oo soo kale Baju Bawra oo ranfirsina calaabada hogaamiye ka noqon doona kaas oo duubis lagu bilaabo doona sanad soo aadan 2024 shaahidka Buur iyo kale mashruuca Sanjaliil Fansali ay weli waqti loo cayimaa saata waxa la sheegay in labadan ay film ay ka wada shaqeey doonaan dhinaca kale maxaa karona in Amirkan wiilkiisa Junayd Khan in uu film kala soo muuqan doono Say Balafi taas oo atirsha caan ka qaybaha koonfurta markaan ayaa war walba ku saabsan wiilka Amirkan Junayd Khan filmka ku soo caanbaxay wuxuu film xilli walba indhaha lagu wada hayo markaan ay warar soo kordhayaan taas oo la sheegay inuu kala soo muuqan doono film atirshada koonfurta ee Say Balafi taas oo wararkaas ay warar markaan ay bulida hangama ay qorayso taas oo soo kala Junayd filmkiisa weli magac aan loo bixin waxa kala soo muuqan doonta atirshada Say Balafi taas oo soo kala sheegay filmkan uu yahay film shabakada Yashar Films iskrada kaalo Sanad Bandeen al sheegay director uu ka noqon doono waa film ku saabsan arrimaha sheeka jacayl Junayd ayaa kala hor waxa loo asteeyay inuu ka soo muuqan doono filmoon dhowr ah asaata marka soo dambeysana waxa ka soo baxayaan warar filmkii uu ku soo caanbixi lahaa kala waxa jirta in kala hor Amirkan waxa xaqiijiyay wiilkiisa Junayd inuu rabo inuu ku soo caanbixiyo filmka oo asiga uu sameeyay Sinjada ee kaas sanadan ka soo gudubna la daawaday kaas oo kala soo muuqda tirshada Kareena Kaburqan filmkaas wuxuu noqday film dad qaaday kadib markii ay isku dhaceen filmka Action Bandan oo watay Akshay Kumar laba film waxana waa film uu qasaare isku dhacoodna wuxuu ahaa film uu gacan sareeyay Amirkan asaata Amirkan sidoo kale filmkiisa rajada weyn laga qabay ma uusan sameynin markaan la arki doono filmka Amirkan wiilkiisa ku soo caanbixi lahaa iyagoo si rasmi ah weli aan lagu dhawaaqin asaata waa warxana ay qorayaan warbaahinada qaar intaan ku soo kabana daawad warbixinada muuqaalada maanta ku qaada dhignay warkii ugu dambeeyay laga qorarmaha koonfurta ee Bollywoodka koos dhan waxa warkii ugu dambeeyay wada karteen daawadaashan ku taxambarta tusmada filmada ay soo kala bartay la iska xogaa hadda warbixinaha ka shaleegay noo soo kala saxaabtiin la wadaaga wad ku maasantiin alaabsad muuqaalada u daawataan waa saaxiibadiina leegtahay inoo saartaan kankiisa xigana sidaas iyo nabad geliyo